gaarigan aad u jeedo waa uu ka duwan yahay gawaaridii aan kaga hadli jiray muuqaaladii hore sababtoo ah ma aha gaari xarago waa gaari shaqo waa gaari loogu talagalay inuu xamuul qaado oo qofka alaabo uu isaga kala qaato meel iyo meel kale waxaa sidoo kale loogu talagalay inuu safaro dhaadheer galo weliba in uu maro meelahay adag tahay in gawaarida kale xoogaa tabarta yar ay maraan gaarigan waxaa soo saartay shirkadda Jack Motors ee laga leeyahay dalka China modelkiisuna waa Jack T8 2023 waa versionkii ugu dambeeyay dabcan waxaad ka dareemi kartaa design-kiisa hore ee naqshadda hore siday u samaysan tahay xoog badan ayaan rabaa inaan gaarigan kaa siiyo waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay teknolojiyadaha uu ku samaysan yahay iyo xog kale oo dheeriya ila dhamaysa muuqaalkan ilana gaar ilaa inta ay kaa gacan hatin doono haddii aan naqshadda hore gaariga ku bilaabo gaarigan pickup truck noocyadii ugu dambeeyay naqshadihiisa ayuu u samaysan yahay sidaad u jeedo nalalkoona kale haddii aanu imaado nalkan iyo midkanba waa nalal loogu talagalay in iftiin wanaagsan habeenii maalin ay bixiyaan midkani kan waa LEDs halka kana loogu talagalay inaad bedelan karto haddii wax emergency kugu imaadaan adigoo meelo fogfog jooga sidoo kale gaariga joogiisa iyo dhererkiisa haddii la fiiriyo waa gaari dheer laakiin gawaarida pickup trucks oo kale intooda badan waa ay dhaadheer yihiin shaaga ku xiran waa 18 haadkiisu waa uu weyn yahay sidaad u jeedo halkan dambe waad arki doontaa waa meel loogu talagalay in alaabaha muhiimka aad ku xaraysato haddii aad safar dheer aadayso oo weliba aad ku xiran karto oo si ammaana hadhow adiga un aad furan karto furo ayuu leeyahay waan ku tusin doonaa gaarigan furihiisu waa keyless entry kaliya waxaad u baahan tahay in furahan uu gaariga kuu dhex yaalo islamarkaa batanka ayaad ka kicin kartaa oo aad ka daari kartaa laakiin intaana gudaha u gelin waxaan rabaa inaan ku tusiyo gaarigan batanada halkan uu ku leeyahay waa 3 batan mid loogu talagalay in hoonka laga yeeriyo adoo bannaanka ka jooga weliba iyo mid loogu talagalay in la xiro iyo mid loogu talagalay inaad gaariga ka furato laakiin haddii midka furidda iyo xiridda aad gacanta ku hayso ood farta ku riixdo waxaa degaya ama kor u kacaya ama xirmaya ama dalacmaya muraayadaha gaariga bal haddeer aan ku tusiyo horta aan furo haddeer uu furay sidaad ujeedo haddii marka batankaa aan hayo oo aan ka furay waxaa dhacaysa in muraayadaha oo idil ay hoos u wada degaan taa marka waxay kuu suuragelinaysaa haddii aad u baahan tahay in aad markaa gaariga degdega aad ka qabsato kale inaad markaaba gaariga isagoonan kacsanayn isagoonan istaarnayn in aad waxaa markaad aad doonto aad kala soo baxdo isla markaa midka laga xiro oo keliya haddii aad hayso isaga ayaa isdalacaya afartaba hal mar ay automatically iswada dalacayaan sidoo kale haddii marar qaar emergency kugu yimaado waad kala bixi kartaa furo manual ayuu leeyahay waad ku furanaysaa laakiin furahan kuuma suuragelinaya inaad gaariga istaar garayso oo aad ku kiciso kuuma suuragelinaya waxa uu keliya kuu suuragelinayaa inaad iridda ku furato oo aad gudaha ku gasho gaariga gudihiisa haddii aan usoo gudbo waxaan dareemayaa gaariga iriddiisu inay adag tahay dabcan steeringkiisu waa uu yaryahay gaarigu waa manual transmission oo qofka gearka manualka kaxayn kara keliya ayaa loogu talagalay gaariga markaan istaargareeyay dabcan waxaan dareemayaa in gaari xoogaa guurtiisu ka adag yahay gawaarida kale caadiga aan ka hadli jiray inuu yahay halkan waxa uu ku leeyahay shaashad yar oo touch screen oo loogu talagalay infotainment dabcan waa shaashado loogu talagalay in madadaalo iyo xogtan gaariga intaba halkan aad ka hesho tusaale ahaan haddii irdaha gawaaridoo kale ay furan yihiin shaashadan inkaabsinaya maadaama xog gaari ay tahay sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad xog wax ka daawato oo kale waad ka daawan kartaa sidoo kale Apple CarPlay iyo Android Auto labadaba uu leeyahay waxaad kaga maarin kartaa inaad telefoonkaaga gaariga gudihiisa ku isticmaasho adoo gaariga wada haddii aan taas kuu sharaxo applicationada ugu muhiimsan ee telefoonkaaga ayaa halkan kuu soo galaya notificationka halkan ayuu kaga soo dhacaya haddii aad u baahan tahay inaad xog ogaato ama uu qofku soo garaaco kale halkan batamadan oo kale ayaad ka qaban kartaa codka ka meerayn kartaa ka gaabin kartaa steerinka ayaa batano leh dabcan batanada ayaad is adeegsanaysaa marka gudihiisa waa gaari update ah ama gawaaridii ultimada loo yaqaano versionskii ugu dambeeyey oo kale ayuu gudaha u naqshadaysan yahay halkan waxa uu ku leeyahay
meel aad dab ka heli karto laba nooc oo dab waad heli kartaa jaajarka gawaarida iyo USB haddii aad wadato labadaba sidoo kale gaarigu waa gaari manual transmission ah oo qofka automatically kaxayn kara looguma talagelin waxyaabaha xiiso leh gaarigan ka dhaxlay waxaa ka mid ah oo gawaarida kale uu kaga duwan yahay maadaama gaariga qofka uu isticmaali karo meelo safara ama magaalada ka baxsan uu isticmaali karo ama haddii marar qaar waxyaaba emergency oo kale uu la kulmo waxa uu halkan ku wataa qalabkii lagu daminayay dabka oo haddii ilaahay kama dhigo adoo gaariga ku dhexin jira ama banaankeeda ahba haddii wax dabo kale ay kugu kacaan kaliya halkan ayaad kasoo baxsanaysaa gaariga ayuu ku samaysan yahay oo uu ku xiran yahay oo loogu talagalayba motoorkiisa haddii aan fiirino waa gaari motoor yare ah oo 4 cylinders ayuu leeyahay waa 4 piston dabcan gaarigan waxa uu kaga duwan yahay gawaarida kaleenka ku tusin jiray ma qaato basiin waxa uu qaataa gas ama nafto ayuu qaataa dabcan waana 2 liter injinkiisu gawaarida kale xoogaa uu ka yara baahi badan yahay maadaama gaari xamuul iyo meel adag ka baxay uu yahay pickup truckna uu yahay qaybta dambe ee gaariga sidaad ujeedo waa ay wada qufulan tahay oo waa qaybtan way adag tahay weliba hadda waad ku seexan kartaa sariir waad dhigan kartaa haddii aad u baahato haddii aad doonto qaybtan oo idil waad iska furi kartaa haddii marka qaybtan aad iska furayso marka hore waxaad u baahan tahay halkan furo ayuu leeyahay dabcan furihiisa aan raadiyo furihiisa haddii aan waayo furihiis waa kan dabcan inaad halkan iska furto halkan hool weyn ayuu ku leeyahay alaab badan ayaad ku xaraysan kartaa haddii marka ay alaabtu tahay alaab ka soo baxaysa qaybtan ama intan ka badan haddii ay tahay kanoo idil ayaad iska wada furi kartaa oo waad ka tegi kartaa isagoo idil haddii marka aad ka baqayso in alaabtaasu alaab muhiima ay tahay oonan iyadoo furan laga tegi karin waad ku xiraysaa midkan ayaad ku xiraysaa sidoo kale halkan meel xarka looga xirto oo loogu talagalay ayuu leeyahay halkan ayaad xarkaha kaga xiranaysaa haddii alaab badan aad ku qaadanayso halkaa kalena labadan oo kale ayuu ku leeyahay dabcan marka haddii alaabtaadu ay tahay alaab aad u baahan tahay in meel safe ay ku jirto sidan ayay kugu xirnaanaysaa haddii kalena isagoo idil qaybtan oo idil ayaad iska furi kartaa sidaan kuu sheegay ugu dambeyntii gabagabadii muuqaalka sidaad u aragtaa xogta aan kaa siiyey gaarigan Jack T8 waxaan kaliya ka tegay oo aan rabaa inaan ka daba tuuro oo aan dib ka raaciyo kalarada gaarigan uu ku yimaado waa caddaan oo midkan aan hadda hor taaganahay ah madow iyo mid silver oo qalin ah gaarigan qiimihiisu inta badan qiimayaasha waad weydiisaan maanta waan idiin sheegayaa gaarigan qiimihiisu waa $24 waxaad ka heli kartaa shirkadda Haleel Motors oo dabcan shirkado kala duwan gawaarideeda keenta shirkadana Jack ay ka mid tahay waxaad ku heli kartaa inaad hal mar wada iibsato ama in aad ilaa iyo 5 sano oo installments aad ku iibsato sidoo kalena waxaad heli doontaa 3 sano oo damaanad ah iyo adeegyo marka aad iibsato kadib aad heli doonto dabcan sidaad aragtaa xogta gaarigan aan kaa siiyey fadlan qaybta hoose faaladaada noogu reeb anigoo kaaga mahad celinaya waqtiga qiimiga badan ku bixisay daawashada muuqaalkan inta laga gaarayo muuqaalka xayba idankii nabadgelyo waa inoo gaari kale